السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي meel kasta aad joogtaan waan salaamaya. maanta casharkeenu wuxuu ka mid yahay casharadii whatsappka lagu sharxi jiray. casharkeenu maanta waxa weeye qaabkee baan u samaysan karaa laba whatsapp ah, whatsapp oo shaqada ama businesska ah iyo whatsappka caadiga ee private khaaska ah. waxaa jira dad badan sharikado ka shaqeeya ama xafiisyo leh ama masalan gabdho oo meelo ka shaqeeya oo u baahan daa'iman dadka inay la tawaasulaan sida kuwa marketingka oo kale. yani lambarkaaga khaaska gaar buu ku yahay adiga, lidalik waa inaad isticmaashaa whatsapp kale oo madmuun ah oo original ah, soo hadhowdii oo u dhahin wuxuu u baahan yahay update ama waa la waayey ama wuu kaa xirmay sida whatsappyada kale oo kan jaalaha buluuga. يعني waa jiraan whatsappyo kale, laakiin whatsappkan waxaad kala soo degaysa waxaa la lahaa whatsapp business baa la lahaa, waxaad kala soo degaysa google play. markaad la soo degtid waxaad meesaadkiisa nii kala sheegaya. horta aan geliyo lambarkayga kale insha allah. waan la soo degay, marka aan la soo degay google playgan kala soo degay, install baan dhahay, waan gudahaan galayaa, open baan dhahayaa. markaan open dhaho waxaan gelinayaa lambarka ama meesha lambarkeeda sharikadda. dib meel hadduu yahay landline ama mobile number mushkilo ma lahan, si kasta kood baa kuu soo dhacaya ama lagu soo wacaya ama sms baa lagu soo tuuraya, waad gelinaysaa waa kuu soo galaysa. meesaadka ka mid ah oo uu leeyahay whatsapp businesska ama whatsapp acmaal waxaa ka mid ah icdaadaadkan galayaa miskiinka. waxaa jirta icdaadaad النشاط التجاري, wax kasta ku saabsan meesha shaqadaada ama sharikadaada. طبعا anu sharikadda waxaan ku qoray wakaalat البرلمان للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة, waa sharikadda aan ka shaqeeyo. طيب waxaan rabaa inaan yani aan buuxiyo ticdaadaadkeeda ama waxyaabaha macluumaadka ku saabsan ama detailska. waxaa ka mid ah cinwaan الشركة, waxaan ku dhufanayaa google map, waa ii galaya meesha aan joogo hadeer oo yani aan joogo sharikadda bay geenaya, khartuum bay ku taallaa. waa ii soo qabsaday. ayib tan baan dhahaya okay. يعني qofka markuu galo meesha wuxuu ogaanaya meesha xafiiska ku yaalo oo igu imaanaya tawaali siniyada ganduul agteeda ku yaalo. khadamaadkan bixino waxaa ka mid ahaa server khadamaad naql, yani dhoofitaanka waxyaabaha ku saabsan safarka iyo cumrada iyo waxaa. halkan waxay dhigaysa xoogaa wax aad kaga sheekeynaysa sharikadda. masalan ladayna safariyaat jamiica anxaa alcaalam, mufawij xaj wa cumra ra'iisi, ladayna rixlaat siyaaxiya. طيب waxa ugu muhiimsan saacaad dawaam ama waqtiga shaqada, leeyahay waxaa jirtaa in dad kula soo xiriiraya habeenkii oo kale xafiiska uu xiran yahay. لذلك waa inaad waqtiga shaqada aad xadidaa si qofka u ogaado. xataa hadduu message kuu soo diro automatic ahaan baa message u soo dhacaya qofkii oo u jawaabaya, wuxuu dhahayaa annaga hadeer ma joogno, insha allah markaan maaragtay waqtiga shaqada insha allah jawaab naga helisa. مفتوح لساعات معدودة, سبتيغا أحدا اثنينتا ثلاثة, هذا كله مفرية أيام كستا ممكن إننا تعديليو. خميستا جمعها ومغلق وفصح ويه. شغالة وحلقة لي الصدح ساعة حلقة صباحية يعني لحدي ومغرب كا لبيه طبعا في المغرب حلقة صباحية. جدول مفتوح إلى ساعات محدودة وكان maalinta jumcaha waa iska fasax. bariidka electroniga tawaali waxaad qoraysaa bariidka electroniga ee sharikadda ay leedahay ama bariidka electroniga adiga ka muwaasaf ahaan aad leedahid saa dadka ugula xiriirtid tawaali, ileen maadaama adiga aad leedahid mobileka kuu safgaraysan yahay. websiteka waxaad leedahay safxad ku taalla ma garanaysa facebooka, twitterka, انستغرام, جميع مواقع التواصل الاجتماعي. haddaa rabtid inaad kusii dartid waa ku daraysa idaafa dhahaysa. تمام.
Een, طيب aniga haddeer waan xadiday sawirkii baan dhigay mowqickii baan xadiday khadamaadka aan bixiyo ama adeegyada aan bixiyo aan xadiday xifd baan dhahaya xifd markaan dhaho qofka markuu soo galo meesha tawaal waxaas oo dhan buu arkaya hoos buu soo dejinaya wuxuu arkaya maalinta jumcaha haa way xiran yihiin ma mushkila طيب waxaa ku soo haray rasaa'ilka ama maasajyada fariinta dirsid oo degdega ah iyo fariin baa jirta oo risaalad tarxiib la dhaho oo qofkii marka kula soo hadlo masalan risaalad tarxiib masalan awal maasaj kuu soo diro marxaba aw asalaamu calaykum kale wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu tafadal baa dhehaysa waxaa dhehaysa مثلا شكرا لك على رسالتك نحن لسنا متوفرين في الوقت الحالي ولكننا سنرد عليك في أسرع وقت يعني هذا أنا ما تشوقنا أما يعني عذر دار وكله واحد يسألنا وحلي قالوا كله ما شقينا لكن إن شاء الله وقت دوبا كله صور لنا طبعا حفظ بعدها هي رسالة ترحيب وحوي يقف كيكوس وقرية مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طوال وحوصل عشرة شكرا لك على تواصلك مع وكالة البرلمان للسفر والسياحة كيف يمكننا خدمتك حفظ بعدها الصف طبعا لو واحد تقدر قرن كرتا ما عندك مشكلة أما الردود السريعة وحكم إذا يعني أضغط هذا قف بيزنس هاي ما ممكن أن تقف في أوقرتد والله أديك أصلا هاي سنة أنت أصلا كوب بحنا أديك أصلا كلام هاي سنة أنت أصلا كوب بحنا ما وحال قصينة وحلا له اختصار خلاص بعد له صار واحد قرص رسالة دي بهالك في السود كنسا واحد كسر هالنقطة أديك أما أي حاجة عروض متوفر لدينا عروض طيران طيب اختصار كذا وامحي اختصار كذا وطن تاسو كلام قرية مثلا طيب أنا ممكن رسالة دير أنا أقر لكن هذا يعني مثالها ما كان يسوقتي الردود السريعة وين شيقني رسالة دوين تام ويلكم مرحبا خارج العمل غف ممكن أن شقين بهالكم طيب هذا وحن سميننا وحن تجاربنا رسالة دينان أدرو مثلا ميشا طيب أنا هذا واتساب هيك عادي قابل قالي وحن ربي رسالة دينا أدرو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك أدعو وحي صدر يا رسالة ترحيب شكرا لك على تواصلك ده رسالة إلكترونية شكرا لك على رسالتك نحن لسنا متوفرين في الوقت الحالي ولسنا سنرد عليك في أسرع وقت شكرا تمام بس انت ثاني شيء أديك فربنا هدو لي هي إن شاء الله وأنا لسه عسيني واحد عصب بإذن الله تعالى وشكرا على حسن استماعكم القف كان وحي يسوق قري أديك باستفسار بالربا أنا ما هيستو زمن أما وقتي أنا بكره وحرب سيدك دقينا وبتشوابه في اختصار كان لقيه وحي يسوق قرية الردود السريع متوفر لدينا عروض طيران بانو قرية بس سعودية يعني ممكن أن اختصار كان أو